رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله كسو دوادا شقريمي channel. waxaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtaan dal iyo dibad iyo da' kastoo aad jirtaan yar iyo weyn iyo qof kastoo aad tihiin rag iyo dumar Allah subxaanahu wa tacaala waxaan idinkaga baryayaa cimri dheer oo cibaado leh adduunyo meelsan leh aakhiro janno leh inuu na siiyo dhammaanteena aamiin aamiin aamiin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل مرادي ومراد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أحبتي في الله كسو دوادا فيديو عصب iyo muuqaal cusub waxaan idin soo jeedinayaa 9 riyo haddii aad ku riyooto inta lagu guda jiro 10kan dambe khaasatan 5tan habeen ee ugu dambeyso waxa ay ku cadaanaysaa in Allah subxaanahu wa tacaala uu kula kulansiiyay Lailatul Qadri oo khayrkeedan uu ku siiyay oo bishaaro ku soo diray noloshaadana uu bedeli doono insha Allah biidhnillaahi alkariim. 9kaas riyo oo ay ku tusayso in aad la kulantay Lailatul Qadr ayaan ku soo gudbinayaa. fadlan haddii aad ka hesho like sidii roobka inooga yeel, subscribe na soo dhaha nagu soo biira na dhiirigeliya, gambeelkana furta si ay idin soo gaaraan wax kasta oo cusub aan soo gelinayno insha Allah biidhnillaahi alkariim. bilmunaasaba waxaan halkan idinku mahad celinayaa awlaadii agoonta ahayd inoo dhinna wiilashana in aad magaranaysaay aad soo dhamaystirteen waa idinkaga mahadnaqaya insha Allah biidhnillaahi alkariim. way dhamaatay waa mahadsantihiin biidhnillaahi alkariim. khamiistana hawshooda ayaan gali doonaa, adeegooda ayaan gali doonaa inta xagga iyo dhig. haddaba waxaan baaq u soo jeedinayaa ummadda ku nool dibadda oo rabaan inay la baxaan fitrada zakaatul fitriga inay la baxaan rabaan amaba daqarsoon qofba sidii loo yaqaano qofkii raba inuu la baxo insha Allah biidhnillaahi alkariim. ummad waxaa jirto aad u gaajaysan soo barakacay guryahooda aan joogin, marna qaxooti ah, marna musaafir ah, marna dhibanayaal ah ayaa jiraan insha Allah biidhnillaahi alkariim. haddii qoys adiga haddaad qoys adiga aad tahay ugu yaraan 5 qofood ama 4 qofood adiga aad ka tirsan tahay waxaa kugu filan hal loor oo bariis ah oo 25 kilogram uu qaadayo waa $20 oo keli ah insha Allah biidhnillaahi alkariim. haddii adiga aad ka soo bixinaysid fitro, haddii aad haysid qof aad siinaysid, qofkii aad haysay ayaad siinaysaa. laakiin haddii aadan haynin qof aad siisid, annaga ayaa haynee dad la siiyo oo ku baxaysa inta salaad id aan la tukanin inagu soo hagaajiya. bariis ayaa loo iibinayaa, halkii loorna waa $20 insha Allah biidhnillaahi alkariim. aweysiskaas ayaan rabaa inaan idin sheego. lambarka hoos ayuu ku qoran yahay, aad nagula soo hagaajinaysaan insha Allah biidhnillaahi alkariim. haddaba riyadan ayaan guda galaynaa. riyada koowaad oo ay ku tusayso inaad la kulantay Lailatul Qadrka waxa weeyaan Allah subxaanahu wa tacaala aragtidiisa, laakiin jinsi ahaan uma arkaysid. yani waxaan ka wadaa jasad ahaan uma arkaysid, laakiin nuur ayaad arkaysaa. waxaa lagu leeyahay waa Allah, nuurkii ilaahay waay ayaa lagu leeyahay, amaba Allah ayaa magaranaysaa imaanaya ama soo degaya ayaa lagu leeyahay, amaba Allah ayaa kula hadlaya ayaa lagu leeyahay, amaba Allah ayaad hortaagan tahay ayaa lagu leeyahay. marba haddii caynkaas adi aad ku riyooto waxaad ku bishaaraysanaysaa in aad adiga la kulantay Lailatul Qadrka. ilaahay khayrkeeda ha ku siiyo. riyada labaadna waxa weeyaan oo ay ku tusayso in magaranaysaa aad la kulantay Lailatul Qadrka waxa weeye malaa'igta eebe oo aad adiga aragto. malaa'igtii oo soo degayso iyagoo guuto ah soo degayaan, amaba guryahaada ku soo degaano, amaba magaranaysaa meheradaada, ama magaranaysaa ii sheeg adiga meesha ku tukanaysay adiga, ama magaranaysaa wadadii aad maraysay, amaba gaarigaaga dushiisa, amaba mootadaada dusheeda, amaba magaranaysaa baaskiilkaada dushiisa, amaba magaranaysaa adiga meel alaal meeshii ku khusayso
ay ku soo deganayso oo lagu leeyahay malaa'igti ayaa soo degaysa lagu leeyahay ayadana saas oo kale ku bishaarayso Allah subhanahu wa ta'ala in uu kula kulansiiyay Laylatul Qadr. Riyada saddexaad waxay noqon kartaa waa aragtida Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Haddii aad ku riyooto tobankan dambe inta aad ku jirtid nebiga oo ku dhool cadaynaya dad la kulantid amaba nebigii ayaa soo socda lagu leeyahay amaba waa nebigii lagu leeyahay isla markaasna haddii aad aragto calaamadihii nebiga uu wato yacni shamaa'ilkiisa uu wato tilmaamihii diinta ay tilmaantay uu wato فإله الحمد كو بشاريسو إن أد لكولانتي ليلة القدر إن شاء الله بإذن الله الكريم وحاكو صورتي رياضة أفراد وحاوايه هداد مقاشيت قرآن الله أخرينايو قرآن كريم كالله أخرينايو هدي أديك كوريوتو آد بيقواناك سنتهاي خاصة إنا أنزلناه في ليلة القدر هدي أد مقاشو ويبا كسي وناك سنتهاي إن شاء الله بإذن الله الكريم waxaa ku soortay riyada shanaad waxa weeyaan in aad la kulanto ama aad aragto Laylatul Qadarka quddiisa ama naftiisa oo lagu leeyahay waa Laylatul Qadarki lagu leeyahay Laylatul Qadarki waaye lagu leeyahay aad bay u wanaagsan tahay insha Allah biidnillaahi alkariim riyada lixaad oo ku tusayso Laylatul Qadarka in aad la kulantay waxa weeye dadkii dhintay mowtida oo ku bishaareynayso in aad la kulantay Laylatul Qadr qof dhintay qaraabada ka tirsan ama aad taqaanid ama waalidkaaga ah ayaa wuxuu ku leeyahay wiilkaygiyo ama gabadhaydii waxaad la kulantay Laylatul Qadarka khayrkeed Allah ku siiyo hadii lagu leeyahay aad aragto fa ilaahi alxamd aad bay u wanaagsan tahay ayadana la soco riyada toddobaad waxa ay noqonaysaa oo ku bishaareynayso inaad la kulmaysid Laylatul Qadarka waxa weeyaan haddii aad lagugu wacaya aad maqasho magacyada yacni Cabdulqaadir oo kale ama ma garanaysaa Qadiira gabar la dhahayo oo kale ama Qatra magac haddii lagugu wacayo ama lagu leeyahay ama gabar Qatra la dhahayo aad aragto ama ma garanaysaa wiil Cabdulqaadir la dhahayo aad ma garanaysaa maqasho ama aad ku riyooto ama ma garanaysaa Qaadir hadaad maqasho ama ma garanaysaa ii sheeg adigan iyo wixii la mid ah magacyadaas oo kale hadii aad ku riyooto ku bishaarayso in aad adiga la kulantay Laylatul Qadarka insha Allah biidnillaahi alkariim waxa ku soo hartay riyada sideedaad oo ay ku tusayso waxa weeyaan hadii aad ku riyooto adiga oo ku tukanaya meel dhiiqa leh ama dhooqo qofba suu u yaqaano yacni meel yaro qoyan oo yacni roob yaro qoyay haddii aad aragto adigoo ku tukanaya ama ku sujuud ama garanaysaa ku rakuuc haddii aad aragto meel dhooba leh aad ku tukanaysid insha Allah biidnillaahi alkariim waxaad ku bishaaraysanaysaa in aad la kulantay Laylatul Qadarka insha Allah biidnillaahi alkariim riyada sagaalaad ee ugu dambayso in aad ma garanaysaa Laylatul Qadarka aad la kulantay waxa weeye ay ku bishaaraynayso in aad la kulantay Laylatul Qadarka in aad ma garanaysaa aad dareento as-sakiina xasilooni in aad dareento riyada dhaxdeeda ha ahaato amaba markaad soo toosto ha ahaato marba haddii aad dareemaysid xasilooni deganaasho riyadii adigoo faraxsan waxaad ku riyootayna ma taqaanid laakiin sibaad u faraxsan tahay yacni adigoo habi ah ayaad soo toostay markaasna waxaad dareemaysaa in aad la kulantay Laylatul Qadarka habeenkaas in aad la kulantay ayaa ma garanaysaa ay ku ishaaraysaa insha Allah biidnillaahi alkariim wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ahibati fillah intaas ayaan soo gabagabeynaya waxaan helay nafiya shaydaanay ka ahaadeen Allah naga dhaafo waxaan hagaajiyena famin Allah xaqiisa ka ahaadeen Allah naga ajarsiyo wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh